mid ka mid ah dalalka dunideenna ugu faca weyn taariikhda casriyadiisu ku siman yihiin in ka badan 5,000 oo sano raadadka jiritaankiisa fog laga dheehdo ahraamtiisa caanka ah dalka faraacinta Masar ayaynu muuqeenan ku soo qaadanaynaa oo ah wadanka saddexaad ee ugu dadka badan Afrika iyo kan koowaad ee ugu dadka badan dunida Carabta ka oo tirada dadkiisa lagu qiyaaso haatan 104 milyan oo qof Jamhuuriyadda Carabta ee Egypt waa dal laba daraf uga yaal qaaradaha Afrika iyo Asia geeska waqooyi bari oo uu Afrika ka saaran yahay iyo dacalka koonfurta galbeed oo uu Asia ka kulaalo docda waqooyi ayuu ka saaran yahay badda dhexe marinka Gaza ayuu Falastiin xadwada kala yahay Israa'iilna dhinaca waqooyi bari badda Cas iyo gacanka Aqaba ayuu jihada bari xadwada kala yahay Suudaanna dhanka koonfureed ayuu daris kala yahay halka uu Liibiya galbeed jaar kala yahay wabiga Niilka ayaana sidoo kale dhexmara wadankan falowda hadaad bogan ku cusub tahay muuqeenana sii faafi hadii uu ku qanciyo kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Masar kaaga warinayno Masar waa dalka ay ka soo jeedaan taajirada ugu badan ee qaaradda Afrika marka laga yimaado qalalaasaha dhaqaale ee dalkani wajahay 10 sano ee ugu dambeeyay ka oo salka ku hayay kacdoonkii 2011 halkaasi ka dhacay haddana waxa wadankani uu hoy u yahay tirada ugu badan ee bilyaneerada Afrika liiska Forbes ee taajirada Afrika sanadihii ugu dambeeyay waxa ku jiray tiro u dhaxaysa 40 ilaa 50 ruux oo bilyamaad haysta kuwa oo masaari ah qaar kamid ah taajiradan ayaa hantidooda lagu sheegay in ka badan 15 bilyan oo dollar iyadoo Masar ay dal muslima tahay haddana cabida khamrada caynta biirta la yiraahdaa waa caadi gudaha dalkan waa sax inaad isweydiisay sida ay tani macquul ku tahay iyadoo la sheego in 90% masaaridu muslim sunni ay yihiin haddana biirta Masar oo la yiraahdo Stella waxa la wariyay in xitaa cabitaankeeda gudaha Masar ku siman yahay casriyo kumanaan sano laga joogo haatan aroosyada sida dhaqanka dalkan ku salaysan loo agaasimo ayaa aad loogu cabaa biirta iyo maalmaha ciidda sida xoguhu tilmaameen ahraamta Masar waa kuwa labaad ee ugu daada weyn adduunka oo ahraamta ku taal meeshan la yiraahdo Giza waa mid kamid ah mucjisaadka dunideena ee ilaa haatan aadanuhu arki karo ha yeeshee ma aha kuwa ugu qadiimisan taariikhda oo waxa la sheegay inay ahaan ka weyn yihiin ahraamta la yiraahdo Jalula ee ku taala Mexico oo la sheegay in la dhisay 3,000 oo sano ka hor doonida ay ku safraan madaxda Masar ee qadiimiga ah Almarusa ayaa loogu yeeraa doonida raaxo oo jirta 154 sano waxa la sameeyay 1864 oo uu arriminayay nidaamkii Ismaaciil Baasha waxaana sameeyay isla ninkii Queen Victoria uu sameeyay doonideedii raaxada Almarusa 5 dabaq ayay ka kooban tahay dhererkeeduna waa 145 mitir taa oo ka dhigaysa doonta 8aad ee caynkeeda adduunka ugu weyn waxaana haatan kaliya safarada u adeegsada madaxda dalkaasi Masar Qaahiro Dunya mar ayay ahayd magaalada ugu quruxda badan adduunka Qaahiro caasimada Masar oo maanta ku jirta magaalooyinka uu qashin ku daboolay quruxdoodii mar ayay ahayd tan ugu quruxda badan adduunkeena sida sanadkii 1925 oo ay safka koowaad ka gashay caasimadaha dunida ugu qurxoon 1950 ayay mar kale mustawahaas gashay oo ay kaalinta koowaad ka ciriirsatay London iyo Paris Masar iyo Suudaan waxa u dhaxeeya dhul baaxadiisu ay dhan tahay 2,000 oo kiiloomitir ka oo labada dal aan midkoodna sheegan sheekada dhulkan aan dawladina lahayn haddana ah xadka labada dal waxa ay ka soo bilaabanaysaa xilligii gumaystaha Ingiriisku haystay labadan wadan 1898 ayaa la go'aamiyay in dhulkan la yiraahdo Bayra Towel uu noqdo mid aan labadaas dawladood midkoodna lahayn si looga dheeraado khilaaf xuduudeed oo colaadi ka dhalato ka oo halkaasi ka qarxa lebiskii ama dharkii ugu daada weynaa abid waxa laga helay halkan Masar lebis dhaqameedkan waagiisii casriga ahaa waxa baarayaashu sheegeen inuu ahaan jiro 5,000 oo sano waana astaan muujinaysa jacaylka Masaarida ee lebiska iyo faashiyonka ay caanka ku yihiin ahraamta Masar waa mid kamid ah 7 mucjiso ee adduunka ahraamta ku yaala halkan Giza waa mid dalkani ku kasbaday qulubta dalxiisayaasha
sidoo kalena ka marakacaya taariikhdiisa durugsan oo tan laf ahaanteedu ay sumad u tahay. 20 sano ayaa dhismaha ahraamtani qaadatay. mid walba oo ka mid ah waxa ay ka kooban tahay 2.5 milyan oo dhagax. mid walba oo ka mid ahina dhererkeedu waa 149 mitir. hal muuqaal kuma soo koobi karo xaqiiqooyinka Masar. muuq kale ayaynu se qorshaynay inaan idinku samayno xogaha kale ee halkaasi ku dahsoon. shirkadda Gaashaan Enterprise waxay ka caawinaysaa aqbalaadda jaamacadaha dalalka Turkiga, Lithuania, China, Malaysia iyo Ukraine, iyo sidoo kale soo saaridda fiisaha caafimaad, waxbarasho iyo dalxiis ee dalalkaas. wixii macluumaad ah oo intaas dheer kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran.